بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم رمضان مبارك دمان umada Soomaaliyeed muslimiinta guud ahaan gaar ahaan shacabka dhaqan caasimadda waxaan rabaa inaan la wadaago barnaamijkan aadka u quruxda badan marka horena aan bogaadiyo agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir bahda waxbarashada runtii waqti adag dalka iyo dadkaba ka soo maray la'aantoodna waxbarashada Soomaaliya maanta heerkan ay soo gaari lahayn inta kadib waxaan rabaa inaan barnaamijkan waa barnaamij wacyigelina waa bishii Ramadaan waxaan nagu soo dhow waqtigii imtixaanaadka carruurta ay gali lahaayeen anigoo raba inaan ku hadlo codka haweenka gobolka Banaadir iyo codka hooyada Soomaaliyeed anigoo xog ogaal u ah xaaladda carruurta iyo xilliga imtixaanaadka caqabadaha ay la kulmaan ayaa waxaan rabaa dhowr qodob oo kala duwan inaan ka hadlo qodobka ugu horeeya waxaan rabaa inaan la hadlo waalidiinta carruurta dhashay inaan maaragtay uga mahad celiyo waxaan soo marnay waqti carruurta aan leenahay go to school imtixaanka ha galaan laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay carruurtii inay imtixaanka galayaan waalidiintoodina ay waxbarashada ay maaragtay u diyaar ay u leeyihiin waxaa jira xilliga imtixaanka markii la gaaro waalidiinta waxaan ku wacyigelinaynaa annaga daana haweenka gobolka Banaadir iyo bahda waxbarashada ama agaasinka waxbarashada waxaa ka go'an sanadkan inay ka bedelnaadaan sanadka hore dhibaatooyinkii sababay markii xog waraysi iyo baaritaan lagu sameeyay wixii keenay carruurta inay dhacaan inaanay sanadkan carruurteena mar kale aan maqlin gobolka Banaadir carruurtooda imtixaanka ay ku dhaceen waalidiinta marka waxaan ka rabnaa xilliga imtixaanka marka hore inay ilmaha dhiirigeliyaan oo carruurtooda ay u muujiyaan inay miiska la fadhiistaan la xisaabtamaan waxay baranayeen iskuulaadkana tagaan in ilmahaaga iskuulka uu tago waxbarashadiisa heer ku joogo marka hore aad ogaatid intaan imtixaanka gelinin waxa laga yaabaa hooyaa tahay maanta oo dhan aad shaqaynaysaa ama aabba tahay carruurtiiba inaan qofna la xisaabtamaynin markaad iskuulka iyo waxbarashadiisa aad soo ogaatid kadib ilmahaaga wixii ka dhiman inaad u dhamaystirtaan waxaan rabaa marka waalidka inaan carruurta waxaa jira hooyooyin iska duruufaysan ilmihii adeejinaya iskuulka markay ka yimaadaan gabadha alaabta dhaq ilmihii cuntada u kari waliba inta ugu badan gabdhaha ayaa caqabadaha la kulmaan waxaan ku dhiirigelinayaa marka inay waqtiga jeefka waqtiga iskuulka aadayaan waqtiga ka imaanayaan iyo xaaladooda xilliga imtixaanka inay waalidiinta la socdaan carruurtooda ku wacyigeliyaan aad dhiirigelisid moralka koowaad ama maaragtay waxbarashadu waxay ka bilaabataa guriga al-ummu madrasa la dhahay hooyadu waa macallinka gurigana hadduu xumaado carruurtu mustaqbal ma yeelanayaan